ciidamada BSF ee maamulka Puntland ayaa weerar xoogan waxa ay ku qaadeen fariisimo ay ku lahaayeen gobolka Bari dagaalyahanada Al-Shabaab. Si gaar ah ciidanka Puntland waxa ay u weerareen Buraha Calmiskaad ee gobolka Bari halka loo yaqaano, halkaasi oo markaa ay ku qaadeen howlgal socday 48 saac. waxaa markaasi dhex maray ciidanka amniga Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab dagaal xoogan kaasi oo saacado badan qaatay. Ha yeeshee saraakiisha ciidamada Puntland ayaa soo wariyay inay markaa dagaalkaasi Daacish kaga guuleysteen, sidoo kalena ay kaga dileen dagaalka 24 dagaalame sida ay hadalka u dhigeen. waxay sidoo kale saraakiishu ay sheegeen in dagaalkaasi intii uu socday lagu gubay 2 gaadiid oo ay sheegeen inay saarnaayeen walxaha qarxa, isla markaana loo waday magaalada Boosaaso si markaasi loogu dhibaateeyo shacabka sida ay hadalka u dhigeen saraakiishu. Saraakiisha amniga ee Puntland ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in dagaalkaasi ay Daacish kaga qabsadeen dhowr fariisimo, isla markaana ay ku qabsadeen fariisimayaashaasi saanad military oo ay lahaayeen Daacish ma jiro wax war ah oo ka soo baxay oo ay kaga hadlayaan sheegashada saraakiisha Puntland in dagaal ka dhacay buuraleyda galgalo in markaa ciidanka Puntland ay kaga guuleysteen. sidoo kale ma aysan ka hadlin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay buuraleyda galgala. Maxamed Yaxya Jino, warbaahinta Nation, Muqdisho.